asalaamu calaykum. sida loo kasbado qofka aad jeceshahay. sida muuqata in qof loo muujiyo inaad jeceshahay maaha sidaad moodayso, balse muuqaalkani ku falanqayn doonaa sida loo kasbado qofka aad jeceshahay inagoo u kala qaadayna qodobo mid walba ay leedahay muhiimad gaar ah. nambar 1, ku kalsoono naftaada. nambar 2, xoogga saar dhanka wanaagsan. nambar 3, ha ka cabsan waxyeelada jacaylka. nambar 4, dhoola caddaynta. nambar 5, fiiri dhanka wanaagsan. nambar 6, mahadnaq. nambar 7, diyaar u noqo inaad qofka kale sii dayso. haddaba markan waxaynu faaqidi doonaa waxay ka dhigan yihiin qodobada aynu ku soo sheegnay muuqaalkeena maanta ee ku saabsan sidee loo kasbada qofka aad jeceshahay. mid mid ayaynu u soo qaadanaynaa haddii waa la idmo. magacaygu waa diine xuseen shacab, halkani waa kanaalka iftiinka. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. nambar 1, ku kalsoono naftaada. ogsoonow in qofka aysan muhiim u ahayn fikradaha dadka kale ay ka qabaan. uma baahnid inaad samaysid qofka kale kula midka ah inuu ku jeclaado, maxaa yeelay waxaad jeceshahay naftaada oo qura. isku kalsoonidu waa mid kuu soo jiidaysa dadka oo dhan. nambar 2, xoogga saar dhanka wanaagsan. iska daa dhammaan fikradaha xun sida way adag tahay in qofkani la helo, maxay u arki leeyihiin sidaan u fiicanahay, iyo talo qofkan weligiis ima jeclaan doona miya. waxaad leedahay sifooyin badan oo waaweyn ah oo kaa dhigaya inaad u qalanto qof kasta jacaylkiisa iyo fikir ku gaara adiga. dadku way ogaanayaan oo ay ku qadarinayaan markaad ogolaato oo aad diiradda saarto waxa wanaagsan. waxaad beddelaysaa walwalkaagii, waxaad furaysaa albaabka sharciga ee soo jiidashada jacaylka. arrinkaasina waa mid kuu keenaya qofka ku gaarka ah. nambar 3, ha ka cabsan waxyeelada jacaylka. waxa ugu cabsida badan ee ku saabsan jacaylka ayaa ah inaad naftaada u balaqdo. markaad naftaada furto waxaa jira fursad aad ku dhaawici karto. haddii aad ka baqayso waxyeelada, waxaa si miir la'aan ah uga hor istaagaysaa qofka inuu ku dhaawaco. diyaar u noqo inaad halista qaadato oo aad si buuxda isagu furto jacaylka. waxaad heli doontaa jacaylka aad rabto markaasi. nambar 4, dhoola caddaynta. sida la wada ogyahay, dhoola caddayntu waxay soo jiidataa qalbiyada dadka. sidoo kale waxaa la midka qosolka oo isna soo jiita dadka. marka samee waxa kaa farxinaya, ha ahaato daawashada film qosol badan ama inaad tagto goobaha aad ugu jeceshahay inaad ku qadiiso kuna raaxaysato noloshaada. haddaba baashaalkaaga iyo farxaddaadu inta ay la eg tahay ayaa si dhaqso leh waxaad u soo jiidan kartaa qofka ku gaarkaa markaasi. nambar 5, fiiri dhanka wanaagsan. diiradda saar waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan qofka gaarka ah ee aad rabto in sharciga soo jiidashada ee kuu keeno. raadi wax lagu qadariyo. midani way adkaan kartaa haddii labadiinnuba darandiidnimo idinka dhexeeyo, oo waxaa laga yaabaa inaad awoodi kartaan inaad bilowdaan hal shay oo keliya. laakiin haddii aad ka sii shaqaysaan way fududaanaysaa. haddii aad xidhiir la leedahay qofka, durba waxaad bilowdaa inaad aragto dabiicadiisa, dhaqankiisa. intaasi oo dhan haddii aad ogaatay, waxaa laga yaabaa inaad isfahantaan. nambar 6, mahadnaq. ku farxa waxaad haysato, iska ilow waxaad rabto. qof ayaa howl kuu qabtay, isku day inaad u mahadceliso markaasi, haba yaraatee hawsha. tusaale, waxaad ka soo degatay diyaarad, waxaana markaasi kugu soo dhoweeyey garoonka qof aad xiriirka la leedahay. wuxuuna kugu yidhi aan kuu qaado walaal, boorsada keen. adigana waad u dhiibtay. midna ha hilmaamin meesha aad rabto markii lagu dhigo boorsada. ku dheh waad ku mahadsan tahay walaal, maxaa yeelay waxaad ila qaaday boorsadaydii. nambar 7, diyaar u noqo inaad qofka kale sii dayso. midani waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee sharciga soo jiidashada ee jacaylka. markaad rabto qof gaar ah, waxaad ogtahay inaad rabto inaad isaga la joogto oo aad waqtigaaga qaadato. laakiin
hadda waxaa laguu sheegayaa inaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad isaga weydo ama aad iyada weydo. weligaa ha ka shallayn xaaladda aad hadda ku sugan tahay, waayo waragnimo buuxda. haddii aad weydo qofka aad doonaysay, ha ka walwelin, waxaad heli doontaa qof ka wanaagsan oo ku hilmaansiin kara taariikhdii aad soo martay. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkan ilaahig saar, siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof. intaynu ku kulmi doono kani muuqaalkiisaga, fii amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.